السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود أمريكا سودانية كجوكتا ونقد دعوان إنسان كسودة وهذا استوديو على بعض تي في كصومالي channel وكل يوم مقالة نيروبي وبرنامج كأن اللي يرضى وتطبيقات البين كجي ما يجري استوديو على بعض تي في كصومالي channل قسموا ده برنامج كيا تطبيقات كانوا حق عنك جيستي ورو كده يرضى الصومالية ده نبضون يوث ألانس وأورو ولا يخرج مريت ده يرضى الصومالية ده تطبيقات كاني أي برنامج كينا وحنا وجدوا دون هدوا الله إدمه واحد جرا ده يرضى بدن وقعد أفرا بدن كواسة وكقيم قاطع ده قال ده كجرا الصومالية يكوا كلوا أي جنا ده يرضى كلوا قص dibadaha kuwaasi oo lagu aaneeyay isticmaalaan maandooriyaha waxaan uga hadli doonaa dhibaatada maandooriyaha uu ku hayo dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan toddobaadkan barnaamijkeena marti inoogu ah Dr. Cabdi Cali Xasan oo kamid ah xildhibaanada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo xildhibaan Maxamuud Ismaaciil Shuuriye oo asagana kamid ah xildhibaanada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Cabdisitaar Xasan Cali oo ah xogayaha saddexaad ee safaaradda Soomaalida ee ku leedahay Kenya iyo sidoo kale عبد الحميد شيخ حسين واسقنا كمدة علماء الصومالية يكونوا ذلك كينيا يا أبوان بلا جروف وكمدة أبوان الصومالية يكونوا ذلك كينيا يا عبد سليمان وأيضا دنيرة الصومالية يكونوا ذلك كينيا يا دنيرة كرايجنا أدو فربضن وديار واحد برنامج كنا قلق بقاتان لما أنت نسي وضر وسود وهذا استوديو تي في كصومالي channel مقالة نيروبي هدي عن كهر مرة دكتور عبد علي حسن واحد جرا دنيرة أدو فربضن oo isticmaala maandooriyaha kuwaasoo loo aaneeyo inay yihiin kuwa ka qayb qaadanaya dagaalka Soomaaliya wuxuu kala jira hadeertan degmadan aan joogno kama kuuji gaar ahaan xaafadda Soomaalida ku nooshahay Sili waxa jira dhalinyaro habeenkii dadka ka qaata telefoonada ama mobilada oo ka dhaca oo qofka meel la markii kuwaas oo aaneeyaan dadka inay isticmaalaan maandooriyaha marka miyaa la oran karaa qas walba ama dhibaato walba ay geystaan waxa bay waa maandooriyaha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهرين وحاوم هاد علنا صومالي channel تي في فرصدان ونوسي مانتينا شعب كصوماليات إذا يرضى كل هذا لنا وجنا سوق يبقلنا دوناجان سيدو كلا وحان هاد علنا يا أورك إذا يرضى نبضون سبونسري محل يراه أسورة جلية تي في يو النجابة إن دودان أن مانت هل كان كي يبقلنا إذا يرضى وحان أجنها إنيهين tiirka ugu muhiimsan ee qaran marka la dhisay ama dawlad ama mid tabardaran iyo mid xoog leh mid doonta haato waxaan ognahay dhalinyaradu inay yihiin waliba hadda dunida saddexaad iyo Afrika iyo Soomaaliya oo kale dadka ugu badan marka qaybaha kala duwan ee bulshada la fiirinayo tirada ugu badan waa da'da dhalinyarada waxaa kaloon ognahay Soomaaliya problem inuu ka jiro shaqalaan ka jirto waxaan ognahay in muqaadaraadka wadamada qaarkood waa sharciya jira mamnuuca waxaa jira ciidan amni oo ilaaliyo oo sharciyada inaan lagu tumanin dunida saddexaad ama Afrika ama Soomaaliya qaasatan sharciyadii hadda sharciga maandooriyaha waa jiray daroogada inay mamnuuc ahaayeen qaadka sideetan iyo saddexdii dawladii ugu dambeysay ee mamnuucday in laga ganacsado in la keeni karo Soomaaliya laakiin wixii ka dambeeyay 22 sano burburaan galnay shuruucda wax ilaaliye ma jirin ayadoo sharciga uu ku qoran tahay inay mamnuuc ahaayeen adana fasax iska ahaayeen ilaa maantadan aan joogno ilaa sharciga dib inta loo cusboonaysiiyo ciidamada laftirkooda loo sheegay wixii mamnuuca inay mamnuuc yihiin markaas la oran karaa dhalinyarada marka mid hadaan soo noqono dambiyada iyo dhibka ay geysanayaan ama ha ahaato Kamakunji ama ha ahaato Soomaaliya gudaheeda maandooriyuhu qaybta ugu badan asaga lahaan oran karnaa sababtoo ah qof miyir qaba oo caafimaad qaba lagama yaabo inuu inta bam isku xiro isqarxiyo lagama yaabo inuu meel xabadi ka soo socoto isu dhigo lagama yaabo maxaa la yiraahdaa in wax caafimaad xumo u keeni kara inuu markiiba ku dhaqaaqo taas marka waxay cadeynaysaa maandooriyuhu inuu qayb ka yahay maxaa haddana ku dhiirigeliya inay dhalinyaradu waxyaabaha naftooda qatarta gelin kara ama qatarta ku ah in ay ku dhaqaaqaan ama ku dhiiradaan inay xubin ka noqdaan qola burcado telefoon dhacaysa noqoto ama bangiye jabsanayso waxa keenaya qofkii inuu nolol waayo shaqo la'aanta kamid ah ayaduna waxa kale oo kamid ah aqoon la'aanta qofku hadduu fursad u waayo inuu wax barto iskuul aado ayada lafteeda waxay keenaysaa qofku inuusan nolosha macnaheeda fahmi karin oo saameyn ku sameeyo marka aniga waxay la tahay intaasoo qodob saameyn ku yeelan karaan laakiin maandooriyuhu mar walba kan ugu qatarta badan
mar walba waa kan si dhaqso leh qofka go'aan u qaadan kara inuu asna ishaligo dad kalena haligo xildhibaan waxaa taa dhaktar maxaad isleedahay marka ugu horeysa qofka markuu soo geliyay isticmaalka maandooriya waxaas ayaa ku kalifa waxyaabo badanaa dhici kara waxaa dhici kara qofka waqti badan inuu helo sida shaqo la'aanta sida inuusan waxba baranin qofku dhalinyarada markuu yahay waa xoog badan yahay aad u firfircoon yahay energy badan oo haya haddii marka xoogga iyo wax ka faa'iidaysta uu waayo waxaa dhacaysa qofkii xooggi meel uu geliyo inuu raadiyo qolo marka inuu u dagmo ama ay uga faa'iidaysato oo tiraahdo nin fircoona tahay nin caqli badan tahay nakeen halkaana wax ka jiraan halkaasoo noloshiisa qatar gelinaysa marka waxa ugu badan aniga waxaan oran karaa qofku hadduusan haysin wax uu ku mashquulo oo horumarinaya noloshiisa ama waxbarasho ha ahaato ama shaqo ha ahaato waxbarashada mid diiniya noqon kartaa mid waxay noqon kartaa maadiya waxbarasho qofka aan haligayn gaarsiinaysa inuu nolol wanaagsan uu helo hadduu waayo waqtigaa ku dheeraanaya subaxii markuu soo tooso waa qiyaas karaysaa 8 saacadood unbaa la hurdaa 16 saacadood waa waqti badan qofka dhalinyarada iyo qofka waayeelku isku mid maaha waxaa laga yaabaa qofka waayeel hadduu noqdo inuu masaajidka inta iska galo oo iska cibaadaysto fadhiyo laakiin qofka dhalinyarada salaada markuu ka soo baxo bannaanka soo istaagaya saaxiibuu raadinaya saaxiibada xunaa meel qaldan u jiidi kara waxaa dhici karta asaga inuu hal abuurka ka yimaado oo uu arko wax uu filim ka arkay ama TV ka arkay ama sheeko uu ku maqlay inuu yiraahdo bal ama tijaabisa qolo kalena uu hore u sii duufsado marka waxaa keeni kara fursadaha dhalinyarada oo ku yar dunida saddexaad qaasatan Soomaaliya iyo geeska Afrikaba in ay u sahasho in ay meesha galaan halka muxuu noqonayaa dhalinyarada in dawladahanu inay fursado u abuuraan shaqo u abuuraan in waxbarashada loo fududeeyo oo ay waxbarashada lagu dhiirigeliyo inay galaan waayo waxbarashadu maanta waa mid kaliya caqliga Ilaahay kugu dhaliyay caqli ka duwan oo caqligaaga wax ku dari kara horumarna ku gaarsiin kara waa waxbarashada waxbarashadu waa waayo aragnimo iyo khibrad la aruuriyay maxaa la yiraahdaa cilmiga dhanba marka laga hadlayo that means waxa way dad ka horeeyay oo wax bartay xogtoodii oo la aruuriyay hal mar lagu siinayo waxa laga yaabaa 200 oo kun oo milyan dad ah oo ka horeeyo dhintay caqligoodii oo dhan inaad hal maalin 4 sano oo jaamacad dhigato haddaad si fiican uga faa'iidaysto madaxaaga lagu shubo marka waa sida kaliya qofku ku barbaari karo ku kori karo maskaxiyan ku kori karo noloshiisana ku badbaadin karo dad badan oo kalena wax ku tari karo aad ba maasantahay xildhibaan maxamed ismaaciil shuuriye miyaad la oran karaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ku kalifay isticmaalka maandooriya waxbarasho la'aan bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan u mahadcelinayaa TV-ga Somali Channel khaasatan ururka nabadoon oo maanta fadhigan qaban qaabiyay runtii fadhigan waa fadhi muhiim ah waa markii labaad ee aan ka qayb galahayo waxaan rabaa horta inaan wax yar xuso annaga haddii aan nahay ka xildhibaan ahaan ka baarlamaanka Soomaaliya arinta ugu muhiimsan oo aan jecel lahay in macnaha mataqaan aan wada hadallo aan waqtiga anaga gelino waxa weeye waa arrimaha dhalinyarada li'annahu dhalinyaradu waxa weeye waa laf dhabarka ummad kasta oo jirta inta kadib waxaan rabaa intaan su'aasha u gelin inaan wax yar aan ka taabto xaaladda bini'aadamku uu marahayo bini'aadamku 3 marxaladood buu maraa mar wuu yar yahay mar waa dhalinyaro marna waa gabow oo waxa weeye waa cimri buu galaa marka fursadda marka qofka bini'aadamka ugu qiimo badan kuruska la dhihi karo meesha ugu qiimo badan waxa weeye waa xilliga uu ku jiro dhalinyarada intuu yahay markuu yar yahayna waa daciif markuu weynaadana daciif kale noqonaya marka fursadaas laftigeedu waa fursad yar oo qofka bini'aadamka ah inta uu haysto hadduusan oga faa'iideysanin dhinaca wanaagsan macnaha uu khasaarahayo waxaan rabaa inaan halkan dhalinyarada adduunka iga fiirsanaysa iyo dhalinyarada hadda iyo hortaaganba inaan u cadeeyo adduunka waxa wax ka bedelay taariikhiyan waa dhalinyaro xitaa islaamka markii dib loogu noqdo dadkii islaamka macnaha ma taqaana u soo dadaalay diintana soo gaarsiiyay kutubta soo qoray dhalinyaro ay ahaayeen dadkii xorriyadaha adduunka Afrika ha ahaato Asia ha ahaato meel walba ha ahaato dadkii u istaagay waa dhalinyaro ay ahaayeen khaasatan dadkeena Soomaalida ah runtii kaalinta ay soo qaateen maanta xorriyadan lagu naaloon hayo kulley aan hadda maanta ma taqaan aan leenahay jamhuuriyadda Soomaaliya dhalinyaro sabab u ahayd anu marka waxaan dhihi lahaa
dhalinyarada runtii fursadda iyo iska khasaarinin haddii ay dhinac wax ka waayaan maalan haddii ay shaqo waayaan waxay heli karaan inay waqtigooda waxbarasho ku lumiyaan inta macnaha mataqaan tusaale ahaan aniga hadda nin weyn baan ahay waxaa laga yaabaa hooyo iyo carruur inay wax iga sugahayaan laakiin ninka dhalinyarada ah 20 jirka ah waxaa laga yaabaa inuusan maartay mataqaan waqti dheer uu u heli karo inuu wax barto inuu wax shaqeeyo asagoon carruur iyo reer iyo macnaha hadda is waxba ku xireen jaaniskaas wuxuu kaga faa'iideysan karaa waqtigiisa inta kadib waxaan rabaa inaan dhammaan u soo jeediyo dhalinyarada Soomaaliyeed dib weyn baa ku dhacay dibkii dhacayna waan ognahay qaar gacmahooda ayaa macnaha sabab u noqotay wadankii ilaa ee Soomaaliya in lagu burburiyo anigoo aaminsan in laga faa'iideystay oo ayagu macnaha duruuftaas looga faa'iideystay xilmaane aan soo laabano qodobkii dooda wax yar marka waxaan rabaa marka in ay macnaha mataqaan arintaas dhalinyaradu ay dib uga soo noqdaan oo dhinaca positive-ka iyo macnaha mataqaan ay u soo noqdaan inta kadib su'aashi ahayd dhalinyarada maandooriyaha waa horta waa camal shaydaan weeye waxa weeye waa shay xun waxa weeye dhalinyaradu runtii intay tala ka booday geed ka boodaaba la yiri markii aad qof dhalinyaro tahay wax walba ku fududiyihiin Soomaalidu waxay tiraahdaa bidaar simiq ku gashay waxa laga yaabaa waxyaabo yar inay si fudud ay ku galaan laakiin hadhow ku weynaadaan anigu waxaan dhihi karaa balwada runtii dhalinyaro badan oo aan lahayn way jiraan kuwa lana way jiraan laakiin kuwa leh waxaan aaminsanahay in waqtigooda aysan ka faa'iideysan aan la dhihi karin shaqo la'aan baa ku kaliftay qofku ma dhihi karo shaqo la'aan baan ahay macnaha mataqaan wax xun baan sameeynaya haddii uu qofku og yahay waxan inuu wax xun yahay مثلا إنه إسكت رادعيو شقب ما هيستيه خمر بان عبي أما قاد بان عوني أما وحي ما في أنا تاس معنا كو جارو ما يهتا سعدو أما قلبي جيس إنه يكدكتو مركو حدي كرا أنا ضدك قبان هاي إن أنا لديه كرين أو لسكو حري كرين شغالة أنت ayaa ku kalifaysa macnaha ma taqaan in uu balwad qofku u yeesho balwadu waxa weey waa shay xun oo uu shaydaan oday u yahay oo macnaha ma taqaan qofku kulay ma artay ma taqaan khalad uu ku dhacay ay aad ba ma santahay xilibaan shuuriye Cabdisitaar waxaad ka mid tahay mas'uuliyiinta safaaradda Soomaaliya ku leedahay dalka Kenya marka miyay jirtaa qiimeyn aan ku sameeysan dhalinyarada waxyaalaha ku kalifa manduuriya bismillaahir rahmaanir rahiim qiimeyn aan ku sameeynay waa jirtaa dhalinyarada maandooriyaha isticmaasho oo islii mobilada dadka kaga qaato waxay u badan yihiin xaafadan la yiraahdo Jam Street waa maqlaysiin reer islii aan nahay isma qaranayno awal way badnaayeen laakiin hadda way yaraadeen wadaadadii culimadii Soomaaliyeed iyo ganacsatadii ay u kacday iyo dadkii loo sheegay inay ku jiraan xaafada islii dhalinyaro Soomaaliyeed oo isticmaalay muqaadaraadka habeenkiina mobilada dadka ka dafo tooreeya wata kadib waa la isku soo baxay si fiican baa loo ogaaday booliiska Kenyana intoodii ugu adkeed way xireen lacag badan oo aysan mar dambe aysan u suurto gelinaynin inay ay mobilada dadka qaataan amba ayagoo sirqaansan ay qof Soomaaliyeed intay ku mudaan oo dukaankiisa soo xirtay salaadiisa subax soo dukaday amba isha soo dukaday marka waxaan u maleynayaa inay hadda islii ay ka dhamaadeen ayaga ay hadda isku bedeleen inay nabadda ay ka shaqeeyaan jaarkina iska dhaafaan marka waxaad leedahay dhalinyarada dhibaatada geysatay xaafadan islii ku nool hal xaafad oo kamid ah islii ay digan yihiin in adeero hal xaafid bay u badan yihiin marka hadeertaan waxaan u maleynaa waana isla ognahay reer islii aan nahay inay ka dhamaadeen intoodii ugu dambeysana waxaan ka codsanaa qofkii aan biil haysanin xitaa waxaan u suurto gelinayaa aniga inaan safiirka u sheego inaan qunsulka u sheego bishii $100 kiridiisa laga bixiyo qofka biilka laga bixinayo ma dhibaatada dhalinyarada dhibaatada geysata mise waa kuwa Soomaalida ah dhibaataysan kuwa dhibaatada geysatay ama hore u geysan jirta hadda iska dhaafay hadii aqabad dhinaca shaqo la'aan ama dhaqaale la'aan ay haysato dhibaatadii ay ku kaliftay inay dadka ay maaragtay ay waxaas ku sameeyaan waxaan codsanayaa xafiiska Soomaali Janan inay yimaadaan ballan waay ambassador baan ku xirayaa waxaan u sheegayaa in dhalinyaradan duruuf ay ka keentay aysan shaqo haysanin ay u baahan yihiin in guryaha kiridooda laga bixiyo waa sidaas aad baa maasantahay Cabdisitaar intii safaaradda la keenayay falka dambiyada ka dhaca islii
oo ah uu ku shaqo leh muxuu ahaa maandooriyaha dhalinyarada isticmaasha waxyaalaha ugu yaabka badan oo aragtiin dhalinyarada ka wacyigeliseen ka safaarad ahaan maxaa sheegi kartaa waxyaabaha ugu yaabka badan waxaa ka mid ah horta annaka marka hore ma soo raadin jirin dhalinyarada ayagaa noo imaan jiray xafiiska bay noogu imaan jireen markay ii sheegaan in ay daruuf haysato ay Soomaaliya ay u baahan yihiin inay aadaan aysan sharci horay islii aysan ugu lahayn dalka Kenya ay u baahan yihiin go home in laga bixiyo ticket markay su'aalahaas aan ka qoro daruuftoodii markan qiyaaso qaar ka mid ah tafiis ahaan aan u aqaana because qof isla degantihiin 4 sano hal xaafadood ma garan weynaysid maanta dhalinyaro fara badan oo shaqaysata ayaa meeshan igaga muuqata dhalinyaradan horteena fadhido qaar waxay ka shaqeeyaan supermarketyada haba tusaale galmad supermarket in ka shaqeeya ii muuqdo dad fara badan oo wajiyadoodii nuur iyo maaragtay islaamnimo iyo salaad ka muuqato oo nadiif ah dhibaato ka muuqan baa meesha fadhiya kuwa kale oo naga maqan walaalahayga aysan u suurtagelin inay meesha imaadaan toddobaadka kale inay noo imaadaan aan u sheegno xaaladda iyo waxa ay kaga bixi karaan dhibta haysta aad baa mahadsantahay Cabdisitaar waxa uu ka mid yahay mas'uuliyiinta safaaradda Soomaaliya ee ku leedahay dalka Kenya Cabdulxamid maxaad oran kartaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku kalifa isticmaalka maandooriyaha bismillahir rahmanir rahim alxamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa ba'd dhamaan dadka imaqlaya inta daawanaysa dhamaan yahay maarta dhalinyarada shirka soo qayb gashay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh haddaan u soo laabto su'aasha ama mawduuca maanta ka niqaashayno waxay su'aasha ku dal wareegaysanaysay in ay maartay waxbarasho la'aanta ama aqoon darrada ay ka mid tahay waxyaalaha dhalinyarada ku qasbo inay maandooriyaha iyo wixii la mid ah faralka xun kale ta maartay la mid ah faraha la galaan iyo in kale ani arintaas ayaan maartay aad waydsanahay waxaan la isdhahi karaa maandooriyaha kaliya wax kasta oo xun ama fal xun kasta lagu tilmaami karo oo ruux bil aadamka uu faraha la galo hayarada ama haweenaado aqoon darro ayaa maartay u geyn karto لأن محايل الروح مركز تقص وحبرته وحوجانا يا وحي حنا مارتي تأثير كي إفكت أي مارتين وريش كلها هانكرته وحي وناكسنا وحي مهمة أي مارتين وريش كلهم بالي كران هدان تصالي ير أن نسيه الله سبحانه وتعالى قرآن كريم كمركز هود الجناي وانقرنا نلقى عربيت بالشدة عربيت وحي مارتي وسخ قرن مارتي فالحمى كجري زين ذا يكوفا سنة وحكوا في سنة مارتي خمري أو لعبون نوع يكستله وحتى أنتي أد وجعل يستين خمري أي بقول يطول مع لغة ذا يقول ذا مع ذلك الله سبحانه وتعالى أسقو وحف الحمى يقدم بي مارتي أخلاق حمى كجرة مارتي بالشدة عربيت لحدة ذا آيات القرآن أهر رسالة أسودجي وحكاها ليسي موضوع وحبر شذا الله محجري قرآن كسورة السجاشن اللحاد آيات كوبات إلا آيات الشنادة آيات أهر رسالة أسودجي قرآن كنوح عن سلعة لغتشي محودها الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق مركا وحكتاك أي كودسينيسا مركا هدي الله سبحانه وتعالى ستة مركا أيضا لو سجل لها ولا ليه لا ورزينها كهرة وخمر يسكت ضعفه ومدينة مرت عنصرية وح أنت يكبر أنت مرت هدي جهل يقولنا أي كافس أي مرت أي كاشدان أي مرت أي فضل إمادان لكن مركي وحبر الشدي دينت أقرب كي وح لو سجل دينت أي فافتي أركيسا إن مرت ست ترتيبه مرت تدريجي أو ترتيب أي وبحين خمرة هذا مرت عن كهل مثلا أو ما نديرها أصلي مرت فرع وهو أبوه وحاول الله سبحانه وتعالى مركو حرم القرآن الكريم وده حديثه إلا يسدح ستيج مرت لأن ما حيالي عرفت خمرة آدي أجعلها ما نديرها آدي أجعلها مرت يجرب وحاول فلحن قصة خمرة كلابية لهين كلابية هذا أنت كم مقليسان مقالوين كالدنيا كجرا قارات كجرا عرفت أوه ريس ما فهمت مع ذلك الله سبحانه وتعالى مركي أوه ريس خمرة الحرم أي الله وحكيري وحالة تزددك إني منافع وحيا وناقة وإك سيدك أقاطان وإي كجران هذا مع ذلك الذنبنا أي لذا لكن مركا حميدة إي وناقة كجران مركا إسكوت إلى ترتد حميدة هذا بضن يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفع الله سبحانه وتعالى مركا الله شيء هذا كهر الله مرهم فيه وحال الله شيء إني منافع كجرته هذا مع ذلك حميد بدنا أي لذا لكن حميد إيه مارتي وناقة كجر مركا الإسكوفيريو أو ميزان كلا صاروا حميد إني بدن تهي يا الله شيء هذا مركا ده حميد يسي إيه وناقة يسي حميد أي بدن تهي وأنا إسكتك تهي لأن فائدة يسا إسكيري أدبا ما سنتهي أبواني واحد كم يتهي أبواني ده لأن يرضى يكون نور دركان كينيا جارهان عاصمة نيروبي مجرتا
waxyaalaha la abuuro ka talisay dhalinyarada Soomaaliyeed ee isticmaala maandooriyaha ka abwaan ahaan. bismillaahi raxmaani raxiim. allahumma salli ala sayyidina maxamed. waxaan awoolen ilaahay baa mahadle. marka labaad waxaan u mahadcelinayaa Somali Channel iyo ururka nabadoon ee dhalinyarada ee soo qabanqaabiyay barnaamijkan. bacdeen mahadcelin waxaan u malaynayaa ma cusba in maandooriyo wax laga yiraahdo oo yacni ama abwaano hore wax ka soo yiri ama kuwa kale dambaa wax ka yiri intaanan waxaan ka iri ama wax iga dhex guuxaya aanan u gelinin waxaan ka hormarsan lahaa waxay ku wareegtay bahashu maandooriyo xagee dhalinyarada mashqal aanta ayaa ugu wacan anigu waxaan isleeyahay dhalinyarada waxa dhibtaan u keenay ee ku soo celceliya waxay tahay inaanay helin markii hore waxbarasho iyo meel ay wax ka bartaan iyo cid u sahasho inay wax bartaan markii dambe oo ay soo kabsan lahaayeenna nin walba ama dawlad ugu jira ama maamul ugu jira sida hadda xildhibaanadu nala jooga aan dhawaha ugu sii shubaya inaanay ballanqaadka ay helaan aysan sida u helaan ayna u fulinin oo aanay helinin meesha ay wax ka baran lahaayeen si ay aqoontooda ugu xakameeyaan inay ka hortagaan maandooriyaha midaas waxay kaliftaa inuu qofka dismoraal noqdo oo niyad jabo dabeetana waxa la wuxuu kooriyaa inuu ka leexan inuu isku qarxiyo xildhibaanka laftirkiisa inuu khamrada iska cabo yacni qofkii ma lahan ma ogtahay maskax iyo yacni wax aqoon xakamaysa waxa la wixii cidii uu ka filaya islaamay ku garab qabanaysa dawlad ilaahay baa la isku tiriyaa laakiin waxa ku xiga dawlad haddaan dawladii aadan ka helinin wax kugu filan oo ka xakameeya yacni dhibtii jirtay waxay noqonaysaa inadayada ka bilowda tiraadoodu waxa ma haysatay maxaad reebanaysaa inay dhexdu xiran tahay oo mushaar iska qaata muxuu ku sheegayaa asoo isku qarxi inta waa iga kaftan waxaan leeyahay ka raali ahaada meeshan waxaa ku qoran maanso iyaan dhaweed aan qoray waxay ka hadlaysaa in badan oo gudaheeda dhalinyarada ka guuxaysa waxay la hadlaysaa dawladda maamulada gudoomiyaasha gobolada ilaa kan xaafadaha qaybo ka mid qaadka iyo maandooriyaha iyo dhalinyarada intoo dhan way isku xiran tahay waxaan malaynayaa haddaan gudo galo ma ii kaafinayso inaan ayadoo dhan wada qaato laakiin maadaama dawladdiina cid nagala joogto aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dhalinyaradiina ay joogaan barnaamijka laga hadlayaana uu yahay kii maandooriyaha bal in yaroo ku kooban bal intaas siyaasiyiinta iyo ku kooban iyo dhalinyarada inta u dhaxaysa iyo waxa aan kala filanayno iyo meeshaan kala joogno ayaan ku soo koobayaa ana mahadsantiin haddii waqtigu ii saabaxo bismillaahi raxmaani raxiim maansadan waxay leedahay gelin dhexe ayaan kacay nooluhu gabaabsiiyey guuro dhexe ayaan kacay xaajadan indhaha guran uu ganaaxay seerigu garwadeenku yari joog goolka dhalinta laga xiray maba loo ogolaba dhalinta waxaama loo ogoleenba de inay waxba ma ogidin waa iska joogaan dhalinyaradu aqoontii ma haystaan meelay siyaasadii ka galaan ma leh salaadii baan soo kocnaa midka ugu fiican dee xoogaa bilaa loo soo diraa laakiin qofka in bil loo soo diro يعني wax ka qodoweyn waxay tahay in qofka la waaniyo wax barashadiisa lagu taageero in xataa fiil laga bixiyo meesha aniga laga bixin la kiro hadii fiil laga bixiyo bari ana anfacayo deecidi sida aan isleeyahay weeyo goolka dhalinta laga xiray garaskan muqlada dhalay soo laabta ima gubin buu yiri miiraana ima gelin miiraagu waa midkaan yareena meelaha lagu cuno anuu mana cuno laakiin wala sheekaystaa rag cuno malaha xigmad baan ka helaa gelinka dambe habeenkii hadda la sheekaystay 6 saac markay gaarto ninka aqliga iyo xigmadda ku jirta iyo maskaxda waxa is leedahay kan dawladdan buu hagi karaa laakiin subax markuu waagu bariyaa is leedahay warar kan oo dhintay aad xala wixii geed mudaa iyo gaxandha la soo guray gabil laysu wada keen gees maroodi loo yeel fariin gaara loo sheeg gol xafiya bir loo dhiib gobolada la kala gee mid waliba geeskiis bala meel ku soo gunud wareer walba waxa la Soomaalida siyaasadda baa la qabiyaaladay adduunka ma ogta aqoon baa dadka lagu soo xushaa baash inta la qabiyaaladay reer walba waxa la yiri ha keeneen oday hebel ha keenoonin oday walba wuxuu keenay kii reerkooda ugu liitay maxaa adiga kii reerkiina idin liitay muxuu ku qaban karaa waxa ma qaban karo mid laba ilaahay ka bixiyay markii laga reebo iyo saddex iska rag aqoon loo qurbaha kamid xoogaa soo bartay ayageena waxa dhaqay waxa la biyo meesha u badan yihiin bay isu raacaan ma ogta si kasta aad u dhisantahay haddaad raacdid midka hadda adabada ku sii xiratid meel xataa yarkaaga bantaraya asaga baa ka adkaanaya gol xafiya bir loo dhiib maxaa nin galbeedow yaabay hankeennii maxaa gumeeyey maxaa madaxii gadhaashay maxaa garashadii shabooshay war caqliba ma jiro dadkii ma ogtahay waxaa la rabaa baash inaad meelaad ku socotid inaad yeelatid iyo maskax iyo inaan fakar yeelano yacni aan ku soconno maxaa nin galbeedow yaabay hankeennii maxaa gumeeyey maxaa madaxii gadhaashay garaadkii yaa daboolay gondaha yaa heerjee saaray intii hanad noo gablooshay miyuu gayaa aamuskeena dad baa ina dhalay inagu dadkiina dhalay ma noqon karno farac baan nahay laakiin inaan waxoon uga ekaana dadkii intaana ina dhalay inta badan qaad ma cuni jirin sigaar ma cabbi jirin khamro ma cabbi jirin qabyaaladuna kuma jirin sida tana inuu mid walba reer halkaas intuu ku xirto saad isula joogtaan haddii hadda heesta calanka la qaado wada ooyeynaa laakiin markaan meesha ku kala tagna waxaa leeyahay xildhibaankii Ismaaciil horta qolo mu ahaa meesha fadhiyay waqti baash waxaa la rabaa in runta la isu sheego miyuu geeyaa amuskeena
maxaa nin galbeedow yaabay markuu gaariga kaxeeyey midaan geerkaba aqoonin gadaalna markuu ka fuulay midaan guuxaba ka saynin war gaari markaad raacaysaa waa inuu darawal dee yaqaana oo wadaadee haddii ummad dhan loo dhiiba ka war aniga la yidhaha hadda dadkaan dhan kaxeey xabad kama kaxayn karo management ma aqaani si dad loo kaxeeyo ma garanayo dee adeer halkaan idinka ridaya albaabkan inta idin furo xagga ka dega inaan idin dhahay noqonaysaa waxaa ka dhigan waxaan arkaysaa tuulo yaroo ku taalla Soomaaliya waxaa bas tuulada hor jooga mid yar aan weligiis wax aqorin wax aqrin tiimbar u haystaa qalalanoo wix loo keeno ku dhuftaa waxa meesha ku qoran xataa ma yaqaano marka waxa lagu leeyahay magaaladan barbaar yar kale u saxiixanba oo sabab awsan aqoonin haday rabaan dawladaha dariska ha noqoto markuu gaariga kaxeeyo midaan guuxaba ka saynin gadaalna markuu ka fuulo markuu gaariga kaxeeyo garaanta mid aan aqoonin gadaalna markuu ka fuulo midaan guuxaba ka saynin garaadkiibaa halaabay gunteennii baa sabooshay maxaa madaxii gablooshay war dadkan moogta caqligooda inuu shaqeeyo dadka bini'aadanka inuu caqligiisu shaqeeyo waa waxa ugu muhiimsan oo dadka ugu horeeya moogta in madaxaagu shaqeeyo iyo caqligaaga oo adigu dee aad isu garatid inaad tahay kan siyaasiga inuu adiga yahay dhallinyarada ah inaad tahay dadkii berrita wax bedeli lahaa inaad adiga maxaaba laba laamood iyo inaad nin kale ku daba fayshid iyo inaad u kaambayn garaysid macnaba kugu aad iyo aad baad mahadsantahay hal mar baan israacanaya raalli ahaada raalli ahaada tiimka cariiriyaa la yidhi waa isfac marba inaan idinkaga dharjiye marka gaarigi baan marayaa markuu gebi dheer ka tuuray dadkoo idin uu gab siiyey markuu hebelyaal galaaftay markuu geyigii dalkeenna harkii geerida ka naadshay mar kale garashoy iyiri diyaaradda aan galbiyo kollay garashaa la waayey guntii taladaa sabooshay ganaax baa koonka saaran haddii sharcigaaga goostay garkii hagilaa la waayo haddii taladiyo go'aanku nin uu gacantiisa joogo haddii gobollada dalkaaga dad kale kala goosanayo go'aankii baarlamaanku hadduu geni raadinayo haddii danyartii go'doontay haddaan biyihii la gaarin haddii caafimaad godoomay hadduu amnigii galaafmay midaan garanayn dantaada miyuu sacab kuu garaacay waa mayaan u malaynayaa midaan adiga waxba kaa garayn muxuu kuugu sacabin miyuu sacab kuu garaacay markii gurigaan la taagay markuu qaangaarka gaaray halkii guul laga filaayey hadduu gumraysi joogo haddii geerida shinkeeda u soo galay inuu gabraarto gacmaha dhigan waayey baahi haddii nacfigaaga goodmay digtoorka markaan u geeyey beliyo golwareen ku sheegay haddii ehelkii isguulay hadduu beelbeel u guuray hadduu amnigii gadoomay dulmiga guursaday samaanta gunkii liidnimo ku faanay galbeed iyo yurububoodku markuu gacalbaajin waayey miyuu gobolaysi joog sigaar iyo gadashadiis qamriyo soo qaaday gaani miiraana gadaal ka raaci maxaa dhallinyaro ku gooyey aad iyo aad baad mahadsantihiin aad baa umahadsantahay abwaane waxaan u malaynayaa cidna maada reebin xildhibaan garaad dhallinyaro dhammaan waa soo wada martaa umalaya xitaa gobolladii aad baa umahadsantahay xildhibaane deeqo abwaane aad baa umahadsantahay deeqo maxaad aad oran lahayd dhallinyarada Soomaaliyeed waxa ku kalifay isticmaalka maandooriya السلام عليكم كل جوان السلامي بسم الله الرحمن الرحيم أنا رأي هانتي دان دلنيرت الصوماليات waxa ku kalifay ma dhigi karo waxa ku kalifay duruufahaas ku kalifay laakiin saadii sida ra'y ahaanta isla dhexdeeda waxyaalo badan arkaysa oo dhallinyarta ku kalifayso wiil yar waxa iska arkaysa meeshan asaga hooyadiisa soo la jooga waxba dhibaato qabin oo waxa arkaysa wax walba faraha kula jir marka tira maxaa kugu kalifan dad oo ana ka helay bulay waa aniga hamigeyga uga helay waaye laakiin anigu waxaan dhiilaa Soomaali hadaa wadanahay meel walba aan wada joogno waxaan ku wada joognaa dib iyo rafaad iyo silic baan ku wada joognaa marka waxaan dhiilaa daroogadan iyo waxaan dhiilaa anaga ka hortagi karna dhalinyartayada kale aan waxba cabin ama walaaltinimada kale iyo waaridka kale ba wax walba ka hortagi kar marka waxaan dhiilaa dhalinyartu waa laf dhabarka oo ummadaan dhiilaa marka waxaan dhiilaa wax walba anaga oo saameyn u keenaysa inaan ka hortagnaan jecel marka ma dhigi karo waxa ku kalifayso duruufo badan aan ku kalifayso intii aad soo joogtay wali ma u joogtay gabdha isticmaalay maandooriya dalkan Kenya dabcan waa arkay gabdho badan aan arkay hadda xataa koofeer meelahaana marka hadda koofeerada kala gashid hameenkii markii 6 ay gaarto 4 saac hameenimo albaabada loo xiranaya waa la buufinayaa bahasha adiga asaab naxayaba
waa baashan buudada la dhaho oo maaragtay dhahaan waa lagu cayilaa shiishada ay dhahaan marka aan xoolaha shaydaan ma aqaanin laakiinse indhahayga waan ku arkaa laakiinse ayagu waxay moodaan inay wax ugu faa'iido ugu jirto faa'iido ugu ma jirto dhibaato badan oo ayagu u geysanaysa ugu jirto marka waxaan dhihi lahaa meel walba la joogo inaan ka hortagnaan jecelnahay والله wax badan ay ku kalifaysaa laakiin ayagu waxay moodaan in u geynayso waxyaalo badan cayilaad iyo ay sheego nafaqo kuma jirto waad asaar oo jirkaaga kamid ay geysanaysaa ayagu ma daraansano marka waxaan dhiilaa wax walba intii la isku duubnaado hal laga hortagaan dhiilaa Soomaalida iyo meel walba joogo aad baa ma santahay marka waxaan jeclahay inaan u soo laabto Dr. Cabdi Cali Xasan oo kamid ah xildhibaanada dawladda federaalka ee Soomaaliya xildhibaane deeqa waxay ka dhawaajisay gabdhuhu inay markii bukiyeerida ay madaxa ku hagaajisaan habeenka xilada markii la gaarinta hoos laga xirto in shiishada ay wada cabaan ku buufiyaan meesha dhamaantood marka maxaad soo kartaa haweenka Soomaaliyeed xilligani waxa noqday waxa aad u isticmaalaan dhamaantooda badankooda oo la inta ugu badan gabdhaha Soomaalida shiishada marka maxaa oran lahayd gabdhaha shiishada ugu kalifaa horta gabdhaha kaliya gabdhaha wiilal bashiishada waa buufiyaan waxa ugu badan oo keeni kara oo aan is oran kara waxa ugu weyn horta shiishada aniga ma u maleynayo inta haysat inta shaqeysa cabta horta badana dhaqaalaha iyo ilbaxnimada la socotaa waan sir way shiishada xataa meelaha lagu cabaayo qaarkood aan ark waa hoteelada ugu qaalisan wadanka 5 star ka oo cafe ina ka cabto 300 oo Kenyan shilling way magarati marka timaado brukeeriyada iyo in la soo dhigo ayada laftirkeedu yaa cabayo qof timaha inuu sameeysto marka hore qarash ku galo oo lugaha loo masaajeeyo qarash inuu bixiyo way marka shiishada aan ma maleynayo qof lacag la'aan inta soo galo horta meel uu ka bilaabay inay tahay laakiin shiishada sida sigaarka kale waqti sigaarka ahaan jiray aniga waqtigeennii aan soo korayno kale sigaarku wuxuu ahaa wax dadka dhalinyarada dhan ay xiisaynayso waa la isku daydaa waxa ugu badan oo horta shiishada iyo sigaarka iyo waa isku dayasho reer magaalnimo ina ka qatarsan tahay kuwa kula daada ah waxyaabaha laakiin maxaa wuxuu dhan asal u ah sheekha iyo anigu taan ka hadalnay qofka marka hore in uu wax barto qofku inuu helo waqti tira badan oo wuxuu ku qabto way qofkii hadii $100 loo soo diray kiradii uu iska bixiyo iskuulna uusan aadin gabar iyo wiil miduu yahay waqti badan u soo haray lacagtii hadii marka $30 uga soo harto 30 ka meel ku qabtay Soomaalidu kuma fiicnaa in lacagta kaydsadaan oo bangiga dhigtaan 30 ka markii inuu qarash gareeyo ya mashquul uu ku noqonaya marka meelaha lagu qarash gareeyo isku dhiirigeliyay kamid yihiin marka shiishada iyo jaadka iyo waxyaabaha markaan waxaan oran karaa waxa soo dhan waxa asal u ah waxbarashada aqoonta daawada ugu weyn oo waxaan looga gudbi karana waa aqoonta way qofku inuu maskaxiyan dhismo abwaanka aad buu uga hadlay maskaxda in la koriyo oo maxaa la yiraahdaa ama maskaxdu inay faqiir noqoto sabool noqoto eraygu isticmaalay kaasoo aha waxa keenaya waxay tahay oo aqoon la'aanta way dadku ma kala aqli badnaadeen hadii dadku isku wax ay wada baran lahaayeen inkastoo uu jira aqli rabbaaniga ilaahay qofku u siiyay laakiin kalena haduu dadaalo waxaa iskuulka markaan dhiganayn ardada qaar markii ilaaska soo fariisto horay wax ka fahmay qaarna 5 saacadood ay akhrinayaan kadib si fiican u fahmay waxa laga yaabaa marka kan fahamka badan inuu is yiraahdo adiga waa fahamtay iska bax waxbarashada markii hadhow imtixaanka la galo ninkii ay ku adkaydo 5 saacadood galiyay inuu ka buundo bato ninkii macallinkii markuu dhigaba horay ka akhrinayay oo horay ka shaqeynayay macnaheedu waxa waxbarashadu mararka qaarkood qof aqli badan ka aqli badnaayay ka aqli badnaysiin kartaa waxaan oran karaa waxyaabaha xakameyn kara waxyaabahan qof awooda iyo qof aan awoodinba in uu balwad yeesho ayaduna ay marka dambe ku qasabtay inuu wax uusan si ayada u helo inuu dad laayo aad baa maasantaa Dr. Cabdi Cali Xasan markaan waxaan jeclaan lahayn inaan fursadda ugu dambaysa ee baanarka aan siino xildhibaan Shuuriye kadibna aan u gudubno dhalinyarada halkaan fadhida si ayagana fikirkooda u dhiibtaan xildhibaane ma waxa la is oran karaa dhalinyarada isticmaalaysa maandooriyaha khaasatan waliba waxyaalahan dambe marka dambe aad Soomaalida ugu soo saaydo shishada ay kamid tahay dhalinyarada magaalka kaliya ama kuwa lacag haysta bismillaah horta xilli walba waxba soo baxa casri walba waxaan hadda ay gabadha inoo sheegtay oo iyo kelmadda shiishada ah meenan aqoonin balwad ahaan hataa markii balwad la yiraahdo Soomaalidu balwad oo meesha lahayn marka waa wax horta ugu cusub weeye waagi hore sigaar iyo qaad iyo waa dadka balwada leh way isticmaali jireen marka arintan hadda waa arin cusub
waa arrin macnaha mataqaana khatarteeda leh waxaa kale oo la yaab leh oo aan dhaqanka Soomaaliyeed ku jirin gabdhaha balwadda maysa lahaan jirin Soomaaliyeed mid waa iska dhici jirtay oo qaad ama waxaas waliba lagu xaman jiray laakiin sida hadda la sheegay in dukaamo macnaha mataqaan ama hoteelada intay gabar fariisato ay afka qiiq ka tufto taas dhaqan omaana lahayn inta kadib dhalinyaradu runtii xaalad adag bay ku jiraan waan u garaabaynaa dalkoodii hadda anaga aan mas'uuliyiinta ka nahay aniga Muqdisho hadda waxay ugu dambeysay 3 bari ka hor runtii fursad fiican ayaa hadda muuqata wadankii oo runtii dib u dhis iyo dib u kabasho iyo waxbarasho cusub ayaan macnaha idigu bishaareynhayaa dib badan wuu soo jiray halaag badan oo dhalinyarada ku dhacay wuu jira oo runtii arrin taariikhi ah oo aan rajeynayo in aanan iloobin marnaba dhalinyaradeenii dhibka ku dhacay laakiin hadda fursadda jirta ayaan rabaa inaan idiin sheego fursadda jirta waxaa weeye wadankii hadda wuxuu galay marxalad dib u dhis iyo marxalad macnaha mata shaqo runtii waxaan rabaa arrintaas shacabka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada ay fiirsanaysaba in dalkoodii ay ku noqdaan ay ka shaqaystaan subaxdii magaalada Muqdisho markii aad salaad subax tukato wadada waxaad arkaysaa ma dad aad u fara badan oo nin walba shaqo iyo amal ma artay aadahaya jaamacado badan baa jira iskuulo badan baa jira waxaan dhihi lahaa nin walba biyascabada looga ragaa nin walba dalkiisa inuu ku noqdo inta kadib shiishadan iyo hadda mukhaadaraadkan waxaan u malaynayaa culimaduna way sheegeen diintana waa la ogyahay dhammaana dad islaam baan nahay ninka ugu yar baa cilmi dhagood macnaha ee Soomaaliga ah ee hata aan weligii dugsi gelin cilmi dhagood buu ka dharagsan yahay musku wax ka dhageysan ama adeerkiis ama abtigiis uu ma artay mataqaana xoogaa ka bowsaday baa ku filan waa la ogyahay waxa macnaha balwada iyo mukhaadaraadku ay diinta ka qabto arintaas waan oga digaynaa waxaan kaloo rabaa inaan idin sheego hadda wadamadan Yurub oo kale anigu waan tagay siiba magaalada London baan tagay xabsiyada waxa ugu badan ee ku jira waa dhalinyarada Soomaaliyeed weeye waxaana waxaas u geeyay macnaha mataqaan waxa balwada la yiraahdo marka balwadu khatar bay leedahay waxaan rabaa inta ay dhageysanaysa iyo inta ay hor fadhida in balwada ay tahay cadowga qofka way kale oo macnaha mataqaan oo kaga badbaadi karo ayaa badan oo almiina hataa haduu iska daayo oo maanta hataa uu juz quraan u akhristo waxa weey ma artay mataqaana uu noolaanaya wajigiisii hataa quruxdiisii ayaa macnaha mataqaan hataa soo muuqanaysa waxaan arkay qofka hataa caafimaadkiisa quruxdiisa shaybkiisa iska badaa macnaha mataqaan sharaftiisa marka arintaas waxaan oran lahaa inta ay dhageysanaysa iyo inta ay hor fadhidaba in ay ka digtoonaadaan ilaahina ka madoobeeyo ayaan ugu duceynaynaa aad baa maasantaa xildhibaane markaan waxaan jeclaan lahayn dhalinyarada faraha badan ee halkaan fadhida inaan fursad siino qofka ugu horeeya mikrofoonka qabsada ayaan su'aasha ku bilaabi doonaa midda kale waxaan ogeysiinayaa dhalinyarada waqtigu aad noo hayo oo waqtiga aad noo hayo waqtiga barnaamijka lagu talagalna uu dhamaan rabo marka sidaas diraaddeed qof walba waxaan jeclaan lahayn inuu araartiisa uu soo koobo qofka ugu horeeya mikrofoonka haysta oo dhalinyarada ah maxaad is oran lahayd ama maxaad is oranaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku kalifaya isticmaalka maandooriyaha waxa weeye gabaygan abwaan baa hore u tiriyay aan u malaynaya hadda inuu san noolayn hadal waa la hindhisaaha waa la akhriyay inama iyo habalo waxa tiin arankaaga caye ee talgabeed dadkiina hore weydiin aragtaane adinka amaanada xilkiga eegan qaabilay iskin wuxuu qabsado noloshu waa udub dhaxadkii gabadheedu waa intaas waan mahadsantii aad baa maasan tahay qofka kale xiga qofka kale xiga asagana muxuu ahaa fikir ka dhiibanaya maxay kula tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed uu ku kalifay isticmaalka maandooriyaha bismillah awalan waxaan salaamayaa mas'uuliyiinta meesha ka soo qayb gashay sidoo kale waxaan uga mahadcelinayaa TV-ga caalamiga Somali Channel sidoo kale barnaamijkan dhalinyartii noo soo abaabushay oo nabadoon ay kana aad bay u mahadsanyiin maanta maalintii ugu horeysay aan microphone gacanta ku qabto oo dad intaan la mida aan ka hor hadlo marka ma sha Allah dadka fikradoodii 100% way fiican tahay laakiin dhalinyartii hadii la fiiriyo waxa ku qasbaya wax kala ma ahan dadkii waa shaqalaan habeenkii waa jiifaan ama habeenkii oo dhan ay soo jeedaan oo waxaad arkaysaa caawa dhan qad baa lagu jiraa waxaad arkaysaa waa wax aan munaasab ahayn lagu soo jeedaa si maalintiina waa la jiifaa waxna lama qabanayo amal meesha lagu ma haayo
waalidkii ilmihii waa lasoo wada diray meeshaana la wada imaaday marka waxaan is oran lahaa aniga bal waalidkiina culays ha saaran dhalinyarta siiba waxaad arkaysaa dadka xitaa waa kala tabar yar yihiin dad waxaad arkaysaa maantay intuu soo kaco aanan heli weyneynin wuxuu cuno laakiin maanta akhlaaq xumo ay ka tahay inuu dad islaameed intuu u tago wax ku dhufto ama wax ka qaado biritoole ma ka ahan caqli xumo ciyaal waa markii wax laga koro waa dhibaato laakiin caruurnimadii wuxuu ku koraa mid kaleeto asaga saqajaan kaleeta oo agaarkiisa markuu ku dayana biritoole gabar walaashiisoo kaleeto intuu u samayn lahaa asxaan oo dadkii kaleeto ka dhicin lahaa luuqluuqyaday uga dhicin lahaa laakiin birito maanta asaga gabadhii taleefon ka qaatay dadkii kaleeto tuugadii kaleetana ma badaynayaanba marka intaasaan kusoo gabagabeynaya asxaabta dambe waxaan jeclahay leenka kale xigto fadhida in ayagana fursad la siiyo si ay barnaamijka ayagana araartooda uga dhiibtaan qodobkii dooda ayaan jeclaan sii raacsatid wax yar istaag adigoo mahadsan maxaad is oran lahayd dhalinyarada Soomaaliyeed ama maxaa leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku kalifaya isticmaalka manduuriyaha soo koob waqtiga aad ayuu noo hayaa bismillaahir rahmaanir rahiim waxyaalaha horta kalifa markii hore laga soo wada hadlay oo Cabdirashiid iyo xildhibaankii kulligood iyo abwaanka si walba looga soo hadlay taa inaan ku laabto ma rabo dogorradan horta waxaa ku isticmaal qof nolosha ka dhacay sukuraayada isticmaal waa horta ma ogtahay qof meesha ugu dambeysay way qof hadduu dogoro isticmaalo dabaqabasho u baahan waa nolosha qof ka dhacay laakiin dadka caadiga ama marka hore waxbarashada helay ama fursadda helay ama lacagta haysto dhaqaalaha haysto hamiye ka sareeyaa ku fikrin because hadduu dogoro isticmaalo biritay talada weyn iyo madaxweynimada iyo barnaamijyada heerka sare uma tartami karo marka qof nolosha ka dhacay way qofkaasi qofkii hadda hawlahaas ku jiran inuu ka kaaftoomo oo macnaha dee noloshiisa isa haboon waxaan u baahan tahay waxaan wacyigelin iyo aqoon in dadka laga wacyigeliyo horta oo effectiga ay keenaysa loo sheego waxaan ay keenaysaa markii laga sheegay waxa laga yaabaa dadka qaarkood hadda maadoriyaasha isticmaala markii la sheegay rag hadda waxaan qaanaa effectiga ay leedahay waxyaalaha qaarkood markii laga sheekay oo sir haday dhibta ku keento nolosha dhanba awaaysid faraha ka qaad laakiin markaad aqoon waa iska cunaysaa wixii wax dhibaatana ku keenaysa aad ogeyn dhibaato marka waxa ugu muhiimsan dadka in laga wacyigeliyo barnaamijka sidaas lagu hortagi karaa aaminsanaan aad baa umahadsan tahay waxaan jeclaan lahaa markaan inaan usoo laabano dhankani xildhibaan aad buu noo hayaa waqtigu oo gabagabadii barnaamijka ayaan taaganahay marka muxuu yahay xalka maxaase tilaabooyin la qaadi karaa si looga hortago dhibaatooyinka maandooriyaha ku haya dhalinyarada ugu horeyn kulley fakarka dadku waa midaysan yahay waxa ugu horeeya wacyigelinta waay oo meediyaha oo idinka haddaa ugu horeysaan inaa fursadahan oo kale dhalinyarada u abuurtaan weliba mararka qaarkood qof horay usoo isticmaalay maandooriyahan haddana kasoo toobad keenay inaa keentaan oo soo fariisisaan waxna waxa waaye wax cilmi iyo caqli ah oo loo sheegayo waxna waa in uu qofku dhibka qofkii maxaa la yiraahdaa khibradda u lahaa uu la wadaago oo yiraahdo shalay markaan bilaabayo waxa laga yaabaa saaxiibkay baan ku dayday hebel baan ku dayday wacyigelintu halkaas ay ka imaan kartaa iskuulaadkana kolley maadooyin badan oo waxa lagu dhigayo waa ka socdaan inta aan fursadda iskuulka u helina aniga waxaan oran karaa sheekha iyo masaajidyada culummadu inay aad xoog u saaraan meediyahana inuu noqdo qayb annagana sharci dejiyaasha aad waxyaabaha aan uga hadalnay ka mid tahay dhalinyarada iyo mustaqbalkooda sidii loo wanaajin lahaa mawduucan ah maandooriyaha iyo maandooriyaasha cusub oo yimidna waa ku darsan doonaa jadwalka hadduu ilaahay yidhaahdo kulamo badanaa samaynaa baarlamaankan u furnaa dhalinyaradu waa yimaadaan sanadkee dadka ugu badan oo yimaado ways kalfadhi walba 2 mar waa noo yimaadaan oo aan fakarka isdhaafsanno waxa ay qabaan iyo annaguna aan u sheegno horumarka meesha uu ka jiro sharciyada la soo saarayaan in mudnaan koowaad laga siiyo oo ay ra'yigooda iyo waxa ay rabaan ay noqdaan waxa sharciga lagu samaynayo aad baa mahadsantahay xildhibaan shuuriye waxaan taaganahay gabagabadii barnaamijka muxuu yahay xalka maxaase tilaabooyin la qaadi karaa si looga hortago dhibaatooyinka maandooriyaha ku haya dhalinyarada adiga soo koobaysid bismillaah xalka waxaan oran karaa aniga qolo walba qayb bay qaadan kartaa tusaale ahaan annaga haddaan nahay xildhibaanadii qaybta aan qaadan karna waxaa weeye shuruuc waad ogtihiin dastuurka Soomaaliya qodobka ugu horeeya waxaa weeye waxa la wixii shariicada islaamka ka soo horjeeda waxaa weeye waa waxba kama jiraan weeye marka
dalka Soomaaliya markuu satal noqdo oo nabadu ay gacanta soo wada gasho runtii waxaa la dabaqi doonaa shuruucda dalka waxaa koow ka wax alla wixii islaamku uu diidan yahay waana dastuurka dalka waxa way meesha ka baxaya halka marka anagoo xildhibaanadii ah anagoo macnaha ma taqaana garanayna fursadan in aan la dayicin waxaan adkeyn doonaa haduu Ilaahay yiraahdo in sharcigaas uu noqdo shuruucda ugu horeysa oo hirgala oo maandooriyaasha xididka looga siibo labo miidiyaha culumada iyo dadka kale ee macnaha ma taqaana runtii sidoo walaalka sheegay ee hore balwada u lahaa laftigooda ama dad waxa jira dhibaatooyin kala kulmay inay macnaha ma taqaan in badan ay ka hadlaan iyo inta fayow Ilaahay macnaha ma taqaan uu ka badbaadiyay kuwan hadda hor fadhiyo iyo kuwa kale fiirsanba inay ayago laftigoodu hadii adigu aad badbaaday walaalka oo dhibka ku jira aad ku fiirsanine nin walba uu kaalintiisa uu ka qaato sidoo uu walaalkiis ku badbaadin lahaa aad ba maasantahay Cabdisitaar gabagabadii barnaamijka ayaan taaganahay muxuu yahay xalka maxaa tilaabooyin la qaadi karaa si looga hortago dhibaatooyinka maandooriyaha oo ka haya dhalinyarada Soomaaliyeed halka wuxuu yahay hadaan abaaro horta maandooriyaha lacag badan laguma bixiyo xilwaanku Cabdi Ali waxaan u maleynaa inuu arkay mid hoteelada qaaliga 5 star ka lagu cabo oo 700 oo shilin oo Kaymani ah oo $12 u dhigmo joogta uu soo arkay laakiin waxa cadeynaya shiishada isli inay ka joogta baaris aan sameeyay 100 shilin oo Kaymani ah oo u dhigmo $1 iyo 1 senti marka meel kasta lagu cabaa sida hadda gabadha walaashayda ay u sheegtay salonka dhixdiisa inta albaabada la soo xirto waqtiga dambe marka la gaaro ba gabdhaha madaxa loo dabaayo amba meesha inay timooda ka hagaajistaan ay u tageen lagu dhibaa qaar waxaan arkay gabdha oo maaragtay u adkaysan waayo oo naqaska ku dhagay because hadii meel lagu xiro dhib baa kugu dhacaya Soomaa marka waxaan codsan lahay in dadka Soomaaliyeed oo culimada ah amba gabdha fara badan jooga oo dadka wacyi geliyo ay kamid tahay Firdawsa Xasan oo gabar wadaadad oo maaragtay dadka wacyi geliso oo diinta islaamka ku wacdiso oo maaragtay wanaaga iyo wadada saxda